Hey guys, haddaba bal aynu eegno siday Tailwind CSS ugu xidhi lahayn. Kadib wuxuun baad imanaysaa Tailwind CSS in website-kooda, official website-kooda. Kadib markaa Tailwind CSS tiraahdo oo official website-kooda gasho, waxa aad install galaynaysaa. Waxaad eegaysaa framework aad isticmaalayso. Framework guidance-gana tegaysaa. haddaad Next.js isticmaalayso Next.js baad ku dhufanaysaa. haddaad feed ku samaysay React app-kaaga feed baad tegaysaa. laakiin create React app baynagu isticmaalnay. kadibna kanan teganaa already project-geeni waynu joognaa folderka project-geena. kadibna waxaynu install garaynaynaa package-kan oo -d-dan waa def dependency bay ku daraysaa, wax weyn maaha. kadibna terminal cusub baan tegayaa, new terminal. kadibna waxaan tegayaa first project-ga. kadib markaan kaa cd idhaahdo waxaan install garaynayaa npm install baan leeyahay -d def dependency-ga ku dar Tailwind CSS. okay, package-kaasaan install garaynayaa. markaan kaa install yidhaahdo let's say waxaan suganaa in yar second bay qaadanaysaa, isagaa iska dhammaanaya hadda. okay, package-kaas wuu inoo install garaysmay successfully. haddana waxaan tegayaa oon qaadanayaa Tailwind CSS mbx Tailwind CSS init baan leeyahay, kanaan ku darayaa haddana oo lami clear kanaan clear gareeyadaa. okay, markaan clear gareeyo haddana kaasaan dhowlaan garaynayaa, waayo config filekas ayuu inoogu darayaa isaga. markiiba init aad tidhaahdo Tailwind config file ayuu inoo abuurayaa. kadibna aan ku dardarsan doono stylekeena wixii classeska aynu aragno. kadib isagaa samaynaya waa kaa Tailwind config.js kaasuu samaynayaa. ka already waa dhammaystirmay. hadda waxaan u imanayaa oon qaadanayaa qaybtan aan already copy idhi. kadibna waxaan imanayaa config filekan isaga laftiisa already waa kan uu ku siiyey, laakiinse bas baan leeyahay, control v baan idhi. okay, safe baan leeyahay. marka waa inaan project-gayga mar kale intaan xidho already waa start garaysan yahay, wuu compile garaysan yahay. marka waa inaan mar kale intaan xidho on control c baan taabanayaa, control c baan si aad u xidho already. marka aad serverkaaga start garaynayso front egg uu ku rangaroobayo waa inaad control c taabataa si aad u xidho. kadib waxaan soo qaadanayaa saddexdan, waayo waxay kaa caawinayaan utility classeskaagay kaa caawinayaan. index.css-kaaganaan dhex dhiganayaa oon ku baas garaynaya. kadibna project-gayga ayaan start garaynaya again, npm start baan leeyahay. markaad npm start tiraahdo si uu serverkeenu u rangaroobo local hostigeenu, kadibna npm start baan leeyahay, isaga ayaan start garaynaya. in yar aan sugna guys, second buu qaadanayaa, minutes meelahaas. okay, compiled successfully buu yidhi. still haddana control s waa inaad control save tidhaahdaa mar kale saad u hubiso compiling aad yara chegarayso. kadibna waa kan already basi mana fiiri headerkeeni wuu yaraaday, kadibna koornuhu ku dhegay. macnihii Tailwind CSS-ka ayaa already wuu shaqaynayaa. markaa sida loo isticmaalo oo classeskaga ku darsanaysa anaa ku tusaya. already wuxuun baad imanaysaa maxaa la yidhaahdaa babel plugins guys, wax error maaha. kadibna markuu ku tuso intanun baa la koobiyaa, npm install baa la yidhaha. kadibna intanun baa lagu darsadaa package-ka. kadibna already kuma tusayo mar kale babel plugin gan install garayn buu ku leeyahay, wax error maaha, ha ka werwerin. marka let me zoom out. okay, refresh baan idhi. markaad doonayso inaad ku darto waa inaad isticmaashaa class name. markaad CSS caadi isticmaalayso class baa la odhan jiray HTML-ka iyo, laakiin marka class name baad isticmaalaysaa. kadibna text baad leedahay, waan yaro weyneynayaa 3xl baan ka dhigayaa. markaas safe baan idhi, control s baan idhi. kadib headerkaygu wuu weynaaday. haddaan 6xl ka dhigo aan 6 ama 7xl aan idhaahdo aad buu u weynaanaya headerkaasi. fiiri isagaa automatically isbedelaya. okaa colorkaad doonaysaad ku darsan kartaa. waxaad odhan kartaa tegaskaan odhan karaa, waxaan leeyahay blue baan ka dhigayaa. isaga blue waxaad siinaysaa intee 700 ama 800 dooro. control s isaga markaad tidhaahdo isaga blue buu ka dhigayaa black.
haddaan iminka underline yidhaahdo underline buu ka dhigayaa sida linkiga oo kale underline buu ka dhigayaa, laakiinse waan ka qaadi karaa. saasaad u isticmaalaysaa guys. documentationka mar walba yara isticmaal sida loogu dardarayo csskan iyo tagskan iyo waxayiin. documentationka haddaad yara isticmaasho waxaad kala ogaanaysaa wax walba. markaad u baahan tahay ayarun baad search garaynaysaa, kadibna waad helaysaa wax walba. marka documentationka badanaa la yara isticmaalaa haddaad doonayso inaad as a programmer mar walba documentationka inaad ku dadaashaan ayaan kugula talin lahaa. marka wax walba iyaa ku siinaya sida walba ood mar walba aad u baahanto oo kaa caawinaya documentationka. marka inagu projectgan already wuu kan haddaan refresh yidhaahdo waa kii hore, laakiinse already mid kaloo inagu furay. kan iska xidhno. marka waxaan samayn doonaa insha allah bal wixii ka dambeeya crash course reactigan sameynaynaa oo project yar ah, kadibna dhowr project oo kale ku xigsiin doonaa insha allah. markaa saas ula soco khayr baan isku ognahay.